inaan ka hadlo xafladii uu dhigtay madaxweyne xasan. haddaan u cusubtiin subscribe saaro, like kambeelka furta. waxaan rabaa inaan ka hadlo madaxweyne xasan xafladiisii habeenkii dhawada uu dhigtay waa ku ceeboobay. brotocoolka meesha ma fiicneen. markaa madaxweyne ka keenaysid wadan kale aad ka casumaysid oo aad leedahay waa lay doortay kaalay xafladeed ka qayb gal, kursiga ku fariisan lahaa. waxaa fiican haddaa xishoonaysid inaad u diyaarisid. laakiin waxaa meesha ka dhacay dadku ay arkayeen wax fiican ma ahayn. axmedo baa yidhi annagu aan taagnaan haddaan rabnee martida u baneeya kuraasta madaxweyneyaasha waa laga aamuso. mar danbaa loo baneeyey. marka madaxweyne xasan waxaa weeye waxaan leeyahay horta brotocoolka meesha oo dhan baa ka hadlaysaa oo dad dhan oo aad casumatay oo wadama kaaga yimaaday meelay fariistaan hadday waayayaan oo aadan dhihi karin meela loo hagaajiyo maxay u casumanaysa? madaxweyne farmaajo intaasoo xaflad buu dhigta. ciidamada dadweynaha xoogaa buu ka casumayey, madaxda meeshooda diyaar bahayd. ciidamada kale buu u qaadiyo ciidamada way buuxeen. waxa isku qasnaa iyo foolxumo iyo qashin ma jirin. laakiin adigu hadda waxay isleedaysay xaflad samayso, xafladaadii waa ku ceebooday. waxaa brotocool ku dhiibtay baana ku ceebeeyey. maxaa yeelay waxaa la rabay madaxda kuraastooda inay gaar ahaato, gaar inay ahaataa la rabay. madaxweyneyaashoo dhan waa istaageen. sheekh shariif, farmaajo, kulli qof fariista ma jirin. waxaa ka yaaba madaxweynaha jabuuti waxaa lihi indha adeeg looma dhinto indha adeeg. hadda waa madaxweyne dhan oo hadda soomaaliya intuu imaanayey farmaajo meesha laga saaro ku faraxsanaa baa lihi. rooblada ki soo durayo hadda soo bedelayuu ahaa oo xusoo laabayay. haddana saas ay tahay waxaa lihi marodiga takad saaro ma jeeda ka kale takad saaro buu jeeda. farmaajo 5 sano buu xukumay meesha. intaasa buuqla socday sida loo soo doortay ninka magaciisa la dhaho Rooble uu usoo doortay. ninkaas markuu tegay jabuuti waa la bedelay. mar walba waxaa laga soo sheegay doorasho saas dib ugu dhacaysa. laakiinse ninkaan yihahdo Ismaaciil Cumar Geele anigu waxaan uga yaabaa inuu yimaado Soomaaliya oo waa ka qaybgelaya xaflad uu dhaho cayb bay ku tahay. farmaajo hadda wuxuu yidhi hay soo agstaago bahalkii halkaan soo istaagay ninka la dhaho madaxweyne sheekh shariif way soo agstaagay. cabdullaahi yusuf baa la bedelay, allah u naxariisto. sheekh shariif baa bedelay, xasan baa ku xigay oo sii bedelay. farmaajaa qabtay. farmaajo haddana hadda xasan baa bedelay. marka ninka la yihahdo Ismaaciil Cumar Geele waa isceebeysa. dadkaaga surka cagta ugu haysaa. dadkaaga cafar baa laysa. ma dhihi kartid dadkaa liida ayaa laga layn. wadanka ma maamushido islaam baa maamusha. ma afkan baa ka hadashaa. hadda waxaad leedahay farmaajoa ku faraxsan. waxaad iska dhigaysaa nin farmaajo ku faraxsan madaxweyne u yimaado. maxaa madaxweynaha farmaajo aad ku faraxday xilka laga qaado? wax kale uguma faraxsan. waxaa ugu faraxsan tahay Soomaaliya. waxaa rabtaa waxaa is leedahay dadkan kale hadday madaxweyne noqdaan dowladdu ma sii soconayso. waxaa is leedahay Soomaaliya injoo baa ka dhiganaysaa. hadba waxaa leedahay caddaanka dowlad baan u sameynayaa qarashkeena anaa shir u qabanay. waxaa Soomaaliya aad dib ugu dhigaysid. marka Ismaaciil anigu waxaan ku leeyahay hadda Soomaaliya waa kabatay. wax walba ha muranto adigu isku dira haddaa rabtid. laakiin Soomaaliya hadda waa kaa adoo soo taagan baa cabdullaahi yusuf la doortay. adoo soo taagan baa sheekh shariif la doortay. adoo soo taagan baa xasan la doortay. adoo soo taagan baa farmaajo la doortay. adoo soo taagan baa hadda xasan la doortay. intaas jabuuti dadkeeda qofkii mucaaradoo hadla
hala dilaa leeda. Hadda ugu dambeysay markaa dhakhtarka aadaysay taliya lahaash waxaa tiri ninkaa mucaaradka ah wiilkaygu soo hadal qaadaayo dil waayadii sirtaa soo fakatay waa tii ninkuu inqilaabay. marka horta adiga Ismaaciilo ma yaxyahay aan waxaan ka oran lahaa meesha la yidhaahdo Jabuuti iska fadhi dadka goortii anigu waxaan dhihi lahaa reer Jabuuti ilaahay hoosu barya, ilaahay ma aragtaa hoosu barya. xukunka diinta waxaa lagu sheegay inuusan xoog ahayn. ninkaa ilaahay baa idinka kicin karaa haddaa hadashaana dee sida dooliyaha ugu jiro musqusha yaa musqusha laydin gelinaya. marka ilaahay gaaru barya. taas waa tan Ismaaciil waxaan la yaabay wejigu la soo fariistay Soomaali dhexdooda waa uu ku ceeboobay. isagoo ceebtiisa ma arko laakiinse annagu waa ku qosilaynaa maxaa yeelay ceebtiisaa aragnaa waa ku qosilaynaa. waxaa igu daray ninka Kenya la yiraahdo Uhuru fulay weeye diyaarad buu soo qaatay anigi dad ilaaliya xasan markaa hadduu imaanay haddana intuu ag maray Sheekh Shariif iyo Farmaajo yaa salaantiisa raba iyo wuxuu salaamay madaxweyne xasan. wuxuu salaamay waxba isku maaha wuxuu ogyahay inuu dhabarka foorarin doono oo dhihi doono aniga haddii Kenya qarax ka dhaco aniga hadduu qarax ka dhaco waa naxaa Soomaaliya hadduu qarax ka dhaco ma naxo. wax saas uga hooseeyuu rabaa. wuxuu kaloo rabaa haddii jaadkii xashada lagu beeray waxa in la soo daayo. ani waxaan leeyahay Soomaaliya haddii caqli leedihiin nin xun oo Kenyaan oo dowladdiina intay burburtay madax kor u qaaday oo idinka business walba u hagaajiseen hadda inuu idin diido inaad madaxa kor u qaadaan ama dowlad noqotaan ayaan daro waaye ayaan daro weeye. waxaan oran lahaa ninkaa iska ilaasha jaadkiisa iyo wixiisana yaan loo saxiixin wuxuu doona ha sameeyo. kole xasan wax maqli mayo dadka o dhan waxaan leeyahay madaxweyne xasan isha ku haya wax walba uu saxiixayo lugta uu qaadaya ka warqaba ma aha nin wadaniye keliya waxaa ku jirta wax boob. maxaa yeelay waxaad ku garanaysaa Turki wuxuu guriga uga dhistay nabad Soomaaliya uusan rabin. Turki wuxuu guriga uga dhistay inuu ku raaxaysto kireysto ayuu uga dhistay. marka wixii baxaya wixii qarash waddanka soo galay wixii baxaya ishaa lagu hayo calaban ishay ku haya caddaankan ishay ku hayaan ishaa lagu hayo. saasaan Soomaaliya kulligeeni kula talinayaa. madaxweyne xasan wuxuu yidhi dadka hore baan heshiis la ahay heshiisku le caalamka la heshiinaya mid Soomaaliya nabadu noqdo inuu noqdo waa arki doonaa iyo mid balaayo soo horjeeda inuu noqdo waa kala arki doonaa. barnaamijka maanta halkaasaan ku joojinaya. daawashadiina waa ku mahadsantihiin kulligeena cimri dheer iyo caafimaad fiican ilaahay na siiyo. waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. nabaday.